muddada sanadka ku dhow soo socday uu u curyaamiyey adeegyadii kale ee muhiimka ahaa ee dawladda looga baahnaa. waraysi dheer oo uu VOA-da siiyey ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo Soomaaliya ku saabsan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay maadaama madaxdii maamul goboleedyada intooda badan iyo madaxdii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay hadda ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, maxay tahay tallaabada xigta ee la fili karo? Well, what's next, we hope, is that these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country. waxaanu rajaynaynaa in hogaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fariistaan hawshoodana si dhab ah uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka. waxaan filayaa inay taasi tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed doonayaan waqtigan. waa ay caddahay waxaa jira nidaam doorasho oo la isku raacay Sebtembar 17 sanadkii tagay, taasoo ah doorasho dadban. inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayay, haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada. hadda ayaase loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo. waxaa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa. hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiisa la gaaro amaba uu jabo. doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeysay. haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hore loogu dhaqaaqi lahaa hanaankii doorasho ee lagu heshiiyey. We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months. And now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process. qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso. maxaad ka rajaynaysaa kulankaas? meesha ma ka saari doonaa isoo fadhiga siyaasadeed? Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so. hogaamiyeyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah in ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aano wada jira. waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno inay hogaamiyeyaashani awoodaan inay kulmaan oo aan rajaynayno inay heshiis gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hanaanka doorashada. waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeena aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta. waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hanaankan sida madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, dabcan hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka, madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba. waxa kale oo aanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tashiilaadka iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha. waxa kale oo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyaaradaha, inagoo sidoo kalena bixinayna tashiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho. waxa kale oo aanu AMISOM kala shaqaynaynaa sugista ammaanka. marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadaladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida. And so we look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed. Mr. Swan ayaa sidoo kale weydiiyey, waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda, balse ka goob jooga ahaan arrintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas'uul bay ka yihiin isor fadhigan siyaasadeed? I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement on the electoral model. waxay ila tahay waxa soo jiray caqabado muddo soo socday kuwaas oo ka imanaya dhinacyo dhowr ah. waxaase hadda muhiim ah inaynu diiradda saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladdan adag. waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada Sebtembar 17 sanadkii la soo dhaafay. hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi. mar kale haddii aan ku celiyo, waxaan kalsooni ku qabaa in haddii hogaamiyeyaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso
meel ay fududahay in ay gebagabo gaaraan taasoo u oggolaanaysa in ay hore u sii socdaan waxaana filayaa taasi waa tan ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso that they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them. su'aal kale oo aan weydiiyay Swan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhaxaysa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaar waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid ma islaadahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladan lagu jiro dalka ka dhici karta. Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling. tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta kalsooni darrada carada iyo dareenka u dhaxeeya hogaamiyeyaashan oo ah mid dhibaato ah mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hogaamiyeyaasha waddankan waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsoonayn waanan ogahay in aysan isku kalsoonayn waa inay wadiiqooyin u helaan hanaanka doorashada lagu qabanayo iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusha doorashada taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan. There are solutions. We've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions. And this is a time when their country needs them to do that. Mr. Swan ayaan weydiiyay ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeyo uu dalku galo adoo xaadir ah haddii aanay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka. I believe that the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a huge failure of leadership. waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamiyeyaashooduba fahansan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn fashil ku tahay hogaamintooda fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda waxaan hubaa hogaamiyeyaasha Soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada Muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn in ay taariikhda u gasho in ay noqdeen hogaamiyeyaal ku fashilmay dadkooda kuwaasoo awoodi waayay in ay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan waxaan rajo buuxda ka qabaa in hogaamiyeyaasha maanta midkoodna uusan ku fekerin in uu sidaas sameeyo. We're unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation. waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay February 19 oo ahayd in dawladdu ay awood xad dhaaf u adeegsatay dad mudaharaad nabadeed dhigayay isla markaana ay joojisay. We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that there has been renewed aniga iyo saaxiibadeena kaleba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19 Febraayo waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha laakiin sidoo kale waxa ku lug leh shakhsiyaad kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug taasi mira dhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca sidoo kale waxa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaan geliyaan tabashadooda. But also there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to James Swan ayaan sidoo kale weydiiyay su'aal ahayd sida aad la socoto danjirihii xilkan kaaga horeeyay waxa si fudud loogu eriyay inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dawladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya mase ka hor istaagaysaa in aad muujiso
walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan? No, certainly not. When there are issues of human rights violations, or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them. Marka ay jiraan arrimo xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ama ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xorriyadda warbaahinta, waxaan dhab ahaantii sii wadi doonaa inaannu diiwaan gelinno oo aannu gudbinno isla markaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aannu si shaacsan ula hadalno. Waan samaynay dhowr mar, waanan sii wadi doonaa inaannu samayno. waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aanu gelayno xilli doorasho, waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xorriyadda hadalka, xorriyadda warbaahinta, xorriyadda isu imaatinka iyo xorriyadda abaabulka, in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo. Freedom of assembly, freedom of organization, that all of these are protected and respected. Mudana Safiir, wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee ka horeeyay sida Axmed Duwalad Cabdalla, Ambassador Mihiga iyo Nicholas Kay waxay gacan ka geysteen hay'ad siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guul ka gaareen. Dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan. Maxaa adiga lagugu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tageysa? Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and stability that allows this country to progress. And that's really what we are. Hagaag, anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaara oo la igu soo xusuusto ka tago. Waxa aan danaynayo waa in hogaamiyeyaasha siyaasaddu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan. Xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro, waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno. waa hogaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 10, 20 iyo 30 sano ee soo aadan. markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen, muxuu ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2021. But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years, when their grandmothers and grandfathers, and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021? ugu dambeyntii aan kula kaftamay intii aad joogto Soomaaliya ma baratay erayo ama jumlada Soomaali ah? Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistics. Dada sanadka ku dhow soo socday uu curyaamiyay adeegyadii kale ee muhiimka ahaa ee dawladda looga baahnaa. waraysi dheer oo VOAda siiyay ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo Soomaaliya ku saabsan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay maadaama madaxdii maamul goboleedyada intooda badan iyo madaxdii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay hadda ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, maxay tahay tallaabada xigta ee la fili karo? Well, what's next, we hope, is that these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country. waxaanu rajaynaynaa in hogaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fariistaan hawshoodana si dhab ah uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka. waxaan filayaa inay taasi tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed doonayaan waqtigan. waa ay caddahay waxaa jira nidaam doorasho oo la isku raacay Sebtembar 17 sanadkii tagay, taasoo ah doorasho dadban. inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayay, haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada. hadda ayaase loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo. waxaa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa. hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiisa la gaaro amaba uu jabo. doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeysay. haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hore loogu dhaqaaqi lahaa hanaankii doorasho ee lagu heshiiyey. We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months. And now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process. qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba
waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso maxaad ka rajaynaysaa kulankaas meesha ma ka saari doonaa is-horfadhiga siyaasadeed Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so. Hogaamiyayaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah in ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aano wada jira. waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno inay hogaamiyayaashani awoodaan inay kulmaan oo aan rajaynayno inay heshiis gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hannaanka doorashada waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeenna aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hannaankan sida madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dabcan hogaamiyayaasha maamul goboleedyada dalka madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba waxa kale oo aanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tasiilaadka iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha waxa kale oo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyaaradaha inagoo sidoo kalena bixinayna tasiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho waxa kale oo aanu AMISOM kala shaqaynaynaa sugista ammaanka marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadaladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida. And so we look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed. Mr. Swan ayaa sidoo kale weydiiyay waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda balse ka goob jooga ahaan arrintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas'uul bay ka yihiin is-horfadhigan siyaasadeed. I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement on the electoral model. waxay ila tahay waxa soo jiray caqabado muddo soo socday kuwaas oo ka imanaya dhinacyo dhowr ah waxaase hadda muhiim ah inaynu diiradda saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladdan adag waxa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada September 17keedii sanadkii la soo dhaafay hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale haddii aan ku celiyo waxaan kalsooni ku qabaa in haddii hogaamiyayaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso meel ay fududahay in ay gabagabo gaaraan taasoo u ogolaanaysa in ay hore u sii socdaan waxaana filayaa taasi waa tan ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso that they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them. Su'aal kale oo aan weydiiyay Swan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhaxaysa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaar waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladdan lagu jiro dalka ka dhici karta. Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling. tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta kalsooni darrada carada iyo dareenka u dhaxeeya hogaamiyayaashan oo ah mid dhibaato ah mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hogaamiyayaasha waddankan waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsoonayn waanan ogahay in aysan isku kalsoonayn waa inay wadiiqooyin u helaan hannaanka doorashada lagu qabanayo iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusho doorashada taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan. There are solutions
We've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions. And this is a time when their country needs them to do that. Mr. Swan ayaan weydiiyey ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeyo uu dalku galo adoo xaadir ah haddii aanay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka. I believe that the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a huge failure of leadership. waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamiyayaashooduba fahansan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn, fashil ku tahay hogaamintooda, fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda. waxaan hubaa hogaamiyayaasha Soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada Muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn in ay taariikhda u gasho in ay noqdeen hogaamiyayaal ku fashilmay dadkooda, kuwaasoo awoodi waayay inay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka. taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan. waxaan rajo buuxda ka qabaa in hogaamiyayaasha maanta midkoodna uusan ku fekerin in uu sidaas sameeyo. We're unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation. waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay February 19 oo ahayd in dawladdu ay awood xad dhaaf u adeegsatay dad mudaharaad nabadeed dhigayay isla markaana ay joojisay? We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that there has been renewed aniga iyo saaxiibadeena kaleba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19 Febraayo. waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas, in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha. laakiin sidoo kale waxaa ku lug leh shakhsiyaad kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug. taasi miro dhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca. sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaan geliyaan tabashadooda. But also there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to James Swan ayaan sidoo kale weydiiyey su'aal ahayd sida aad la socoto danjirihii xilkan kaaga horeeyay waxaa si fudud loogu eriyay inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dawladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi. taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya mase ka hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay ku muuqdaan? No, certainly not. When there are issues of human rights violations or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them. marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ama ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xorriyadda warbaahinta, waxaan dhab ahaantii sii wadi doonaa inaanu diiwaan gelinno oo aanu gudbinno isla markaana ku soo qaadno mas'uuliyiinta ay khusayso oo aanu si shaacsan ula hadalno. waan samaynay dhowr mar, waanan sii wadi doonaa inaanu samayno. waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aanu gelayno xilli doorasho, waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xorriyadda hadalka, xorriyadda warbaahinta, xorriyadda isu imaatinka iyo xorriyadda abaabulka. in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo. Freedom of assembly, freedom of organization, that all of these are protected and respected. mudana safiir, wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee ka horeeyay sida Axmed Duwalad Cabdalla, Ambassador Mihiga iyo Nicholas Kay waxay gacan ka geysteen hay'ad siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guul ka gaareen. dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan. maxaa adiga lagugu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tagaysaa? Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and
stability that allows this country to progress. And that's really what we are. hagaag anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaara oo la igu soo xusuusto ka tago waxa aan danaynayo waa in hogaamiyeyaasha siyaasaddu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno waa hogaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 10ka 20ka iyo 30ka sano ee soo aadan markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen muxuu ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2021kii. But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years when their grandmothers and grandfathers, and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021? ugu dambeyntii aan kula kaftamay intii aad joogto Soomaaliya ma baratay erayo ama jumlada Soomaali ah. Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistics. Dada sanadka ku dhow soo socday uu curyaamiyay adeegyadii kale ee muhiimka ahaa ee dawladda looga baahnaa. waraysi dheer oo VOA-da siiyay ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo Soomaaliya ku saabsan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay maadaama madaxdii maamul goboleedyada intooda badan iyo madaxdii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay hadda ku sugan yihiin magaalada Muqdisho maxay tahay tallaabada xigta ee la fili karo? Well, what's next, we hope, is that these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country. waxaanu rajaynaynaa in hogaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fariistaan hawshoodana si dhab ah uga wada hadlaan mustaqbalka wadanka waxaan filayaa inay taasi tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed doonayaan waqtigan waa ay caddahay waxa jira nidaam doorasho oo la isku raacay September 17keedii sanadkii tagay taasoo ah doorasho dadban inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayay haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada hadda ayaa loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo waxa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa hadda waxa la joogaa xilli wax heshiis la gaaro amaba uu jabo doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeysay haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hor loogu dhaqaaqi lahaa hanaankii doorasho ee lagu heshiiyay. We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months. And now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process. qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso maxaad ka rajaynaysaa kulankaas meesha ma ka saari doonaa isoo fadhiga siyaasadeed? Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so. hogaamiyeyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah in ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan kala fakar duwanaashahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aano wada jira waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno in ay hogaamiyeyaashani awoodaan in ay kulmaan oo aan rajaynayno in ay heshiis gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hanaanka doorashada waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeena aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hanaankan sida madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dabcan hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba waxa kale oo aanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tasiilaadka iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha waxa kale oo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyaaradaha inagoo sidoo kalena bixinayna tasiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho
waxaa kale oo aanu amisom kala shaqaynaynaa sugista ammaanka marka waxaanu rajaynaynaa in wadahadaladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida. And so we look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed. Mr. Swan ayaa sidoo kale weydiiyay waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda balse ka goob jooga ahaan arrintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas'uul bay ka yihiin isorfadhigan siyaasadeed. I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement on the electoral model. Waxay ila tahay waxa soo jiray caqabado muddo soo socday kuwaas oo ka imanaya dhinacyo dhowr ah waxaase hadda muhiim ah inaynu diiradda saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladdan adag waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada September 17keedii sanadkii la soo dhaafay hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale haddii aan ku celiyo waxaan kalsooni ku qabaa in haddii hogaamiyayaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso meel ay fududahay in ay gabagabo gaaraan taasoo u ogolaanaysa in ay hore u sii socdaan waxaana filayaa taasi waa tan ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso that they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them. Su'aal kale oo aan weydiiyay Swan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhaxaysa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaar waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladdan lagu jiro dalka ka dhici karta. Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling. tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta kalsooni darrada carada iyo dareenka u dhaxeeya hogaamiyayaashan oo ah mid dhibaato ah mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hogaamiyayaasha waddankan waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu